qarnigii 20aad wuxuu ahaa qarni ay dunida si weyn isu beddeshay. Boqortooyin waaweyn ayaa burburay, dalal cusub ayaa soo baxay, dagaalo waaweyn ayaa dunida ka qarxay. Dunida waa lagu sameeyay malaayiin qof ayaa ku dhintay dagaaladaas, laakiin dhinacaasi waxaa soo kacay dal cusub oo awood badan, dal jasiirado ah oo la yiraahdo Japan. Japan waxay doonaysay inay noqoto mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan dunida, waxayna si degdeg ah u dhistay ciidan xoog leh. Bartamaha isbeddelka waxaa taagnaa nin dhalinyaro ah oo loo diyaariyay inuu noqdo boqorka Japan, magaciisuna wuxuu ahaa Hirohito. Hirohito wuxuu ku dhashay Tokyo, Japan sanadu markay ahayd 29 Abriil 1901. Magaciisa dhalashada wuxuu ahaa Hirohito. Aabihii wuxuu ahaa Emperor Taisho, hooyadiina waxay ahayd Princess Sadako. Labaduba waxay ka tirsanaayeen qoyska boqortooyada Japan. Hirohito wuxuu ahaa wiilkooda ugu weynaa, taasi waxay ka dhigtay qof si gaar ah loogu diyaariyay boqornimada. Carruurnimadiisa caadi ma ahayn. Laga bilaabo da'dii yaraa waxaa loo bilaabay waxbarasho gaar ah. Waxaa lagu barbaariyay taariikhda Japan, waxaa lagu baray dhaqanka boqortooyada, waxaa sidoo kale lagu diyaariyay sida uu u noqon lahaa boqor. 2 Noofembar 1916, Hirohito wuxuu si rasmi ah u noqday dhaxal sugaha boqortooyada. Taasi waxay ahayd tallaabo weyn, sababtoo ah hadda waxaa si cad loo ogaa in maalinta aabihii dhinto, Hirohito uu noqon doono boqorka Japan. 19 Noofembar 1921, Hirohito wuxuu noqday qofka boqortooyada mas'uulka ka ah. Sababta waxay ahayd caafimaadka aabihii oo sii xumaanayay. Isla sanadkaas, Hirohito wuxuu safar dheer uga baxay Yurub. Wuxuu booqday dalal ay ka mid yihiin Britain, Faransa, Belgium iyo Talyaaniga. Safarkaasi wuxuu ahaa mid muhiim ah. Wuxuu arkay sida dalalka kale loo maamulo, wuxuu arkay boqortooyin kale, wuxuu sidoo kale arkay in dunida casri sii noqonaysa. 26 Janaayo 1924, Hirohito wuxuu guursaday Princess Sadako. Waxay markii dambe noqotay boqoradii Japan, waxayna wada yeesheen 7 carruur ah. 25 Diseembar 1926, aabihii Hirohito. Maalintaas, Hirohito wuxuu noqday boqorka Japan. Wuxuu jiray 25 sano oo keliya. Xilliga cusub ee boqornimadiisa waxaa lagu bixiyay Showa, laakiin Japan xilligaas ma ahayn dal degan. Ciidanku wuxuu bilaabay inuu si weyn u saameeyo siyaasadda dalka. Waxaa sii xoogaysanaya rabitaanka in Japan ay qabsato dhulal badan. Sanadihii xigay, Japan waxay qaaday waddo ay u horseeday dagaallo waaweyn. 18 Sebtembar 1961, waxaa dhacay dhacdo loo yaqaan Mudkan Incident. Kadib, Japan waxay qabsatay Manchuria. Manchuria waxay ahayd meel ku yaalla waqooyi bari Shiinaha. 1 Maarso 1962, Japan waxay halkaas ka samaysay dowlad ay si weyn u maamuleysay. Laakiin arrintu halkaas kuma dhammaan. 7 Luulyo 1962, dagaal weyn ayaa ka qarxay Japan iyo Shiinaha. Dagaalkaas wuxuu socday sanado. Waxaa dhacay dagaallo aad u xun, dad rayid ah ayaa dhintay, magaalooyin ayaa burburay. Ciidamada Japan waxaa lagu eedeeyay gudubyo aad u culus. Hirohito wuxuu ahaa boqorka Japan intaas oo dhan, laakiin su'aasha ah intee ayuu si toos ah ugu lug lahaa go'aamada ciidankiisa? Taasi waa arrin ilaa maanta lagu muransan yahay. 27 Sebtembar 1940, Japan waxay heshiis la gashay wadamo ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga. Saddexda dal waxay noqdeen saaxiibo dagaal. Xiriirka Japan iyo Mareykanka ayaa markaas sii xumaaday. Kadib waxaa dhacay maalinta taariikhda isbedeshay. 7 Diseembar 1941, Japan waxay weerartay Pearl Harbor. Pearl Harbor wuxuu ahaa saldhig weyn oo ciidamada badda Mareykanka ku lahaayeen Hawaii. Weerarkaas wuxuu sababay in Mareykanka dagaalka si rasmi ah ugu biiro. Dagaalkii Japan iyo Shiinaha wuxuu noqday qayb ka mid ah dagaal caalami ah. Dagaalkii labaad ee adduunka ayaa si buuxda u galay Aasiya iyo Badweynta Basifiga 1942 ilaa 1944. Dagaalka wuxuu sii socday. Japan waxay qabsatay dhulal badan, laakiin markii dagaalka sii dheeraaday, xooggeedii ayaa bilaabay inuu yaraado. Ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda ayaa si tartiib ah uga soo dhawaaday Japan. Magaalooyin badan oo Japan ka mid ah ayaa la duqeeyay, badan ayaa ku dhintay. Dalka waxaa ku dhacay cunto yari iyo burbur. Markii la gaaro 1945, Japan waxay gashay xaalad aad u adag. 6 Agoosto 1945, Mareykanka wuxuu bom atoomig ah ku tuuray Hiroshima.
wuxuu sabay burbur aad u weyn. Dad aad u badan ayaa ku dhintay, isla markiiba kuwa kale waxay u dhinteen dhaawacyo iyo saamayntii shucaaca nukliyeerka. 3 maalmood kadib, 9 Agoosto 1945, Nagasaki ayaa lagu tuuray bam kale. Recorded from 6 miles away these views of the most concentrated release of explosive energy in the history of mankind. Isla waqtigaas, midowgii Soviyeedku wuxuu dagaal ku qaaday Jabaan. Jabaan waxay hadda wajahaysay xaalad aad u daran. Dowladda Jabaan waxay ku qasbanaatay inay ka fikirto in dagaalka la sii wado ama in la joojiyo. Haweeney adag ee Tokyo ka dhacay, mas'uuliyiinta Jabaan waxay u kala qaybsameen hal su'aal: dagaalka ma sii wadnaa mise waan joojinaa? Hirohito wuxuu ugu dambeyn taageeray in Jabaan ay aqbasho shuruudaha lagu joojinayo dagaalka. 15 Agoosto 1945, codkii Hirohito ayaa laga sii daayay raadiyaha. Dad badan oo Jabaaniis ah ayaa markii ugu horreysay si toos ah u maqlay codkii boqorkooda. Wuxuu ku dhawaaqay in Jabaan ay aqbashay shuruudihii lagu joojinayo dagaalka. Dagaalka Jabaan wuxuu halkaas ku dhammaaday dhammaadkiisa. 2 Sebtembar 1945, Jabaan waxay si rasmi ah u soo warqadihii isdhiibidda. Dagaalka Labaad Adduunka wuxuu galay dhammaadkiisa rasmiga ah. Dad badan waxay doonayaan in loo qaado maxkamad. Waxay ku eedeeyeen in uu mas'uul ka ahaa dagaalkii Jabaan, laakiin Hirohito wax maxkamad ah lama saarin. 3 May 1947, dastuurka cusub ee Jabaan ayaa si rasmi ah loogu dhaqangeliyay. Dastuurku wuxuu bedelay awooddii boqorka. Hirohito wuxuu noqday astaan qaran. Jabaan waxay bilaabday inay dib u dhisto magaalooyinka. Qarankeedii ayaa koray, warshadihii ayaa dib u shiday. Sanadihii xigay, Jabaan waxay noqotay mid ka mid ah dalalka dhaqaalahooda ugu xooggan yahay dunida. Hirohito wuxuu sidoo kale bilaabay inuu si weyn ugu mashquulo cilmi-baarista xayawaanka badda. Wuxuu ahaa qof xiiseeya cilmiga badda. Wuxuu qoray qoraallo cilmiyeed ku saabsan xayawaanada badda. Jabaan waxay isku dayeysay inay dunida tusto in ay ka gudubtay waayihii dagaalka. Hirohito wuxuu noqday boqor ku nool Jabaan cusub. Sanadihii u dambeeyay noloshiisa, Hirohito caafimaadkiisa wuu sii xumaaday. 7 Janaayo 1989, Hirohito wuxuu ku dhintay Tokyo. 24 Febraayo 1989, waxaa loo sameeyay aaskii boqortooyada